بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal ku soo dhowaada channelkayga ustaad xabiib cabdiraxmaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay sabskraybta saaro, gambaleelkana furo si ay barnaamijtu hadba ay kuu soo gaaraan. insha allahu tacaala waxaynu ka hadli doonaa mowduuc aad iyo aada u muhiima. waxaanan idinka codsanayaa inaad sii sheergaraysaan oo aad la wadaagtaan walaalaha muslimiinta ah. 5 riyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu soo dirayo intaanan qofka saaxirka ah ama qofka daalimka ahi uusan dhibta kuu geysan, uusan sixir kuu samaynin, ama inta jinka laguu soo diray ee rabay inuu naftaada dhibaateeyo intuusan ku dhibaatayn, fariin laguu soo dirayo si aad uga digtoonaatid. soo arrin muhiima ma aha. 5 riyo haddii mid ka mida aad ku riyootid, ogow inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku jecel yahay, digniinna kuu dirayo, lagu leeyahay naftaada wax ka bedel, adkaartaada iyo weysadaada iyo taxsiina nafsi ku dadaal, cadowgaagana aad markaa kaga adkaanaysid oo aad kaga guulaysanaysid. walaalayaal, waxaan hore u tilmaamay suxaradu qofka kama daba haraya. shayaadiintu fursad iyo jaanis ayay mar walba raadsanayaan, walciyaadu billaah. waxaan hadda ka hor idinka soo sheekeeyey qiso cajiibo gabar walaashan soomaaliyeed ku dhacday oo markii dambena alxamdulilah aynu dhibtii ka cilaajinnay. gabadhaasi waxay tiri, subxaana allah, weligay adkaarta kama tegin bay tiri. maalinkii sixirka la ii samaynayey, heer markii dambe saaxirku uu gaaray, uu yidhi heblaayo sidan kaga adkaan mayno, everyday waxay akhrisanaysaa adkaare, gabar yahay u tag, galabta soo mashquuli. casarkiiba halkaa la iiga soo galay, gurigaa la iigu soo gargaraacay, waa la ii sheekeeyey. dhowr gabdhood baa ii yimid oo saaxirku soo dirsaday, bal ka waran. dhowrkii gabdhood way ii sheekeeyeen adkaartii casarkaa la iilowsiiyey, aladkaar almasaa. maalintaas wixii ka dambeeyey baa dhibaatadii qabsatay bay tiri. macnaha heerka la gaaray fiiri, marka jaanis la waayey oo adkaartii la waayey baa heer waxa la gaaray in qof laguu soo diro si qofkaas kuu dhibaateeyo. marka liajli daalika, zaman waxaynu ku jirnaa aad u baahan tahay inaad naftaada adigu u baqdid, aadan oraya wax iga qaadi karaya. dad fara badan maanta heerkaa waxa gaarsiiyeyna waxa weeyaan digniin la'aan iyo wax ay danaynayaan baanan jirin. war hoy adduunku sidan maahay, taxadara oo dadaala. 5 riyo waa muhim. mid ka mid ah haddaad ku riyootid, ogow waa digniin, waa fariin lagu leeyahay is ilaali. 1 ru'yatu lkilaabi batajru waraaka, kilaabta ayda oo yajru waraaka, gadaashaada soconaya, wayuxaawiluuna tacadudak, waxayna isku dayayaan in ay ku qaniinaan, sidoo kalena ma awoodayaan. riyadani waxay ku tusinaysaa ay baad ku riyoonaysaa. aydaasi waxay soconayaan ama ay isku dayayaan inay ku cayrsadaan, ama maanta oo dhan adigu waa socotaayo gadaashaada ayay rabaan in ay waxa loo yaqaano ordaan, sidii inay adiga ku soo weerarayaan camal. waxay isku dayayaan inay ku qabsadaan oo ku qaniinaan, laakiin ma awoodayaan, mar walba qaniyo kula heli maayaan. فهذه الرؤية تدلك waxay ku tusinaysaa in uu jiro jin laguu soo dirsaday
oo rabay markaa inuu jirkaaga dhex galo ku dhibaateeyo laakiin aanan awoodin oo aanan ku gelin laajli dhalika wuu isku dayayaa markaa fariintan ru'yadani waxay kuugu imaanaysaa laajli digniin darteed waa in aad ka taxadartaa markaa ru'yada labaad ama riyada labaad oo fariin digniin ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu soo dirayo waxa weeyaan oo aad ku riyoonaysid ru'yatu alkhuruuji min almaqaabiri riyada aad ku riyootid inta lagu dhex geeyo qabri ka bacdiina qabrigaas oo mugdi ah oo aad ka naxaysid oo almukhiif cabsi ah ka bacdiina faj'ah dariiq baad helaysaa waad ka baxaysaa ru'yadaasina waxay ku tusinaysaa in laguu samayn rabay sixra almaqaabir sixir halis badan oo qabriga adiga la rabay in lagugu dhibaateeyo qofkaasi wuxuu rabay markaa inuu ku sixro laakiin wuu awoodi kari waaye laajli daalika maadaama sixirkaasi uu halis badan yahay riyadaasa ilaahi subxana wa tacala digniin ahaan kuugu soo dirayaa iyadana waa in aad ku baraarugtid horey waxaynu uga soo hadalnay calaamaadka halista badan waxaa ka mid ah adigoo qabriga ka dhex bixi kari waaya qabri baa lagu keenay mana awoodid inaad ka dhex baxdid فهذا تدل إن سحر حلس بدن أو كأصيبي لكن تاني وعكسجذي واتكدح بحيسة لأجل ذلك هو أرم بشارة والدجنين وفرين وللسحر كما قبل وهي رؤية سدحات وهي رؤية الدين إن أذكر رؤية دوبدا المشي في الطين وعلو يقان أذيك كل حلوين يميل دوبا عيد أما دوبا أما عرّ وينزل من السماء مطرا كبعد السماء وحكسو دغيا روب كاسو مركا ماشي كودل دايا اما عيدي بكودل دايا فهذا تدلك waxay ku tusinaysaa in uu qof rabay inuu sixir guriga iridkiisa ama dibadda wajahada kuugu daadiyo sixir almarshuush weeye laajli dhalika ilaahay marka uu ka badbaadinayaayo roobkaasi wuxuu ku tusinayaa ee meeshii ciid ahayd ku soo degaya macnaha wali sixirkii kuma qaban waa la nadiifiyay weeye marka adigu meeshii ciidii baad ku dul socotaa meesha aad cagta saaraysa roob baa ku da'aya ama eeriyadii oo dhan roob baa qabsanaya riyadu siyaabo kala duwan bay ku timaadaa laakiin adigu ka qabso hadba dad wax ku dhow ku riyootay waa bishaara yani waana digniin sixirka marshuushkaas oo qof rabay inuu ku sameeyo laakiin kumuusan qaban رؤية أفراد وفرين تقنين ولقول لي يتحدر وحويان رؤية الأكل وحد يريد يأكلك وحد كل ريوتي عنه غفر بينه كسية أدو لكن وأنت رافض أدو ديديسة تماما قف كاسي marar badan buu isku dayaa inuu wax ku siiyo ama qof aad garanaysa ha noqdo ama qof uusan garanayn ha noqdo marka waa diidaysaa ama cuntadii wuxuu soo hordhigayaa cunno ama wuxuu soo hordhigayaa biyo cabitaana timaad ka dhexelaysa ama dirximaad ka dhexelaysa marka saas iska nacaysa iska dhigaysa taasina waxay ku tusinaysaa waxa loo yaqaan qof raba inuu ku sameeyo gurigiisa ama casuumad ama wuxuu kula maagan yahay inuu jaanis kugu eegto in uu ku casuumo أما عنك سيو أما عنا هديت كوجو كانوا سئو سحر كعنا ذا سحر المأكول أو المشروب سحر كأكل النسيو سبحان الله والعياذ بالله لأجل ذلك وحد أبا هنتها إلى تحدرت كو عنا آدم قف كعنين قف هذا قرن أنت قف هذا كوكر صونين بينك هذينا قف كتشعل ورالك أما إهل كاجي أهو تأسلذين قف عن كل باتين كرين معناها بعد شر موت وهذا كفلانين قف كاس مشي لك هي dadka qaar oo meel walba inaad dalaq iska tiraahdo guri walba iska gashid dad baa moogtahay risk ka dhigtay inay dadku cunno siiyaan soo jeebkiisa wax ka iibsan karaya ha heblaayo xagee isku nimaadna ha ma sha Allah guriga heblaayo maanta qada kuleena casho kuleena miya ha waxaas waxyaalo lagu gaadi kara way ajli dalika waa in aad aslan ba wax afkaaga aad gelinaysid waa inaadan ku khamaarin qof walba ka cun wax walba afka geli
هديد والبلغو كان يحلوت كست الدلقسي dadka qaar baa macnaha way soo yihiin xataa dadka qaar waxay ku leeyahay wallahi anigu afkayga cunna layga raacaya macnaha hadii la sumeeyay hadii xataa la dilay cunna laygu sumeyn karaa because cunna jacayl darteed marka waa inaad taxadartaan badan kana inaad kaarta si akhrisid weysada si akhrisid marka bismillah tiraahidna insha Allah biidna xukun kale ilmaaya mar walba taxadar kaga bas ruyada ugu dambaysa waxaad ku riyoonaysaa ar-ru'yatul bayt ru'yo guri baad arkaysaa gurigaas oo guri weyn ah kabacdi gurigaas albaab ma laha meel aad ka soo gashay iyo meel aad ka baxdidna ma jirto sidoo kalena waxa loo yaqaano diiqa tanafus baad dareemaysaa ciriiri fara badan baad dareemaysaa cabsi baad dareemaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka dambena albaab buu si sabaray si kadisa kuugu furayaa kabacdina albaabkaasaad ka baxaysa albaabkaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaa saaray ru'yadaasina waa qofka wuxuu rabay sixir inuu kuu sameeyo oo uu kuu aaso liajli dalika marka uu awoodi kari waayey ilaahayna fariinta digniinta abuu riyada ahaan kuugu soo diray oo lagu leeyahay taxadar hebel oo fadhiga ka kac ilaahay fadhiga ka kac gurigaaga adkaar ku akhri qur'aan isaar weysada ku dadaal shanta riyo walaalayaal wax u dhow ama wax la mid ah dad ku riyootaan waa arin digniin ah liajli dalika waxay dhahaan alwiqaayatu khayrun min alcilaaj waxa loo yaqaano inaad isdaweysid waxa ka fiican inaad taxadartid liajli dalika maadaama la rabo inaad taxadartidna waxaa la rabaa insha Allah biidni illaahi almawla in aad ka taxadartid arrimahaas riyooyinkaasina waa fariimo digniina sii shargareeya baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad